ودي ريتولة ده يا اسكت دقنيس ألعابتي دي واحد سوق لانكي حصميني سا وحلي هذا درجة دقين وكسور ديا ونك قوانا يا عبار أيو قلتشنا يا وحي ركور وحينا يا markaan waa yaabayahay nin reer markuu gabar sirtula soo guulsado wasaas wuxuu wacayaa dhinkii dhalada markii laga soo gado hore wuxuu weydiinayaa qiimaheeda wuxuu u sheegayaa in qiimaheedu uu fiirinayo wuxuu u sheegayaa in $500 ay joogto markaasna waxa uu shidmaya murug ayaa u shidmaysa dhalada $500 ka soo baxshay ayaa hal mar shaambo ma lagu dhaqay wuxuu la hadlayaa gabadhii qiimaha ma garanaysa $100 inta uu joogo ay xilli qiyaastii waa iska adiga hal bun oo South Sudan ah yani qof tilaaliyo ka dhacsan waaye dollarka iyo waxa soo dhan fahansaneen xarifka marka mushkiladiisa ay gacanta ku doontay gabar reer tuula ah laakiin sumlaysay reer magaal tahay ay soo guursaday gabadhii Noor waa markaan la mid diyaarinaysa alaabta inay noqdo laakiin mushkiladda meeshaan waxay tahay alaabta xagee ku dhaqi doontaa waxay ku jirtaa qasaalada dharka lagu dhaqaayo wiilka ayaa maqlaa sanqarta alaabta oo soo kacay wuxuuna fiirinayaa waxay sameynaysaa gabadhu xasaminaysa waxay alaabta yaan dhaqayaa waxay ku jirtaa alaabta mishiinkii dharka lagu dhaqaayo inkii yaab ayaa u shidmay iyadoo yaaban tahay oo waxa dhacay wadaacad bay ka tahay isagana uu yaabayaa maxaa dhacay bay leedahay isla ula murugoonaysaa waxaad sameysay ma garanaysaa buu yiri marka loogu talagalay baad ku dhaqaysaa alaabtii marka ayadu leedahay sida miya xabo kama oge wala dadar ma xulay waxa mudambaadi ii sheegin ha isku sameeynin oo ka tagaya haday marka alaabta qasaalada ka soo saaraysaa ninka yaab ayaa shidan asaga soo guursada gabar tuulaal dhaafi waayay daasay waxa marinaysa telefoon baa soo dhacay nin saaxiibkiisa soo wacay wuxuu u sheegayaa in uu aroos yahay inay soo booqdaan markuu aroos ka baxaan oo casuumaad u fay doona asaga iyo marwadiisa isagoo wuxuu leeyahay arintaas aad u soo dhaweynayo isagoo marwadiisa reer tuulaalida ballamin doona wacaya wuxuu leeyahay birita waxaan aadi doonaa saaxiibkii gurigiisa halkaas oo ku soo salaami doona isaga iyo marwadiisa cusub iyadana waa mid aad u aqbalaysa una sheegaysa inay diyaar u tahay barnaamijkaas weliba ay aad isu nasnaashi doonto waxay maalintii xigtay ayaa la gaaray marka ninka hadda waa nin soo diyaarsi soo labistay iyadana waxay tiri waxa soo labisanaa make up ay waxbay marsanaysaa marka waa isdiyaarinaysaa marka la isku qurxinayaa maadaama loo socdo xalfad casuumaad ah ninka waa nin diyaarsan laakiin waxaa kusoo dahda gabadhii hadba mid saacadda fiirinaya saaxiibkiisa soo wacay wuxuu leeyahay waa dahdeen maxaa kugu dhacay isaga wuxuu sheegay inuu soo bixi rabo gabadha uu yeerayaa heblo ayada xigaa qolka dhex hadlaysaa oo soo socdaa bay ku haysaa 2 saac ayay dhacday 2 saac kadib haddana waa lagu soo celshay waxa la yiri war heblaaway gabadhii waa haddana heblo waa soo socdaa taadooda nin gabadh tuulaaliya dad guursada ka xaabi adigana culayskaas badan aad helaysaa dad magaalo joogo iska dhigay wiil reer magaala 4 saac ayaa ku dhacday intuu sugay gabadha wala soo waxa marka waxa la yiri xilligan ka dambeys waaye ma soo socotimiya saaxiib سيقول حلو واو كل شوقة واتنا إذا اللي السوق رحيه واو ما شاء الله Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me!